doonaa. madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa iyana dhankooda ka hadlay shirka maanta iyo sida ay la tahay hiigsiga sanadka 2016. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno haddaan ku laanahay furitaanka madasha wadatashiga Soomaaliyeed kasoo qaybgalka beesha caalamka la joogtana waa soo dhaweynaya waan ku mahadsanyahay maantooda. Puntland waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso Soomaaliya saaxiibadana Soomaalida iyo beesha caalamkaba 2016 oo saskaas uu guul ku dhamaado ayna u dhalato dowladnimo Soomaaliyeed oo wanaagsan. waxaan aad u aaminsanahay in haddii aan isku nimaano wada hadalno in farqi kastoo noo dhexeeya ka heshiin karno ayaan aad iyo aad u aaminsanahay. waxaan kaloo aaminsanahay haddii jiraan wax farqi ah oo ama si guud noo dhexeeya dhex yaalla ama si gaar ina dhex yaalla inaan ka wada hadli karno kana wada heshiin karno. haddaan kaftamo waxaa suurtagal ahaydba waxaa laga shakisnaaba ama xoogaa kala shakiga keenaya inay ahayd inay suurtagal tahay hay-adaha qaar iyo dadka qaar inay 2016 kala dhuumanayeen ama cabsi laga qabay laakiin madashani shakigeedu meesha ka saaraysaa oo caafimaad iyo daaweyn ay keeni doontaan aaminsanahay. halka dhabta 2016 ku socon hadda waxaa loo jiraa waxaa la kala guud shalay waxaa la interim baa laga soo guuray dowlad baa la yimid waxaa la 2016 wax kale loo guuray waxaan kaga guuri karaa innaga oo uur xaalan waxba isu qabin waxaan ku wada hadlayna saraaxa uga wada hadalla admaacda siyaasadeed lana kulli intaan banaanka soo dhigan nin walba Soomaali maxaa dano miiska laga soo fariisto wax kasta ma dhici karta boqolkiiba boqol inaan uur ka wada isku wada qanacsanahay soo dagal ma noqon. waa la wada joogaa in la wada tashado oo gogoshaas la dhigo oo meesha loo socdo lasu tilmaamo oo laga wada hadlo sida sanadkeeda loo sheegay si saraha looga wada hadlo intuu waxaa aad u fiican waaye diyaaran umar anaga maamulkeeda koonfur galbeed in waxaan si saraha looga hadlo sidii arrintaas ay ku suura geli lahayd oo ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadooda ay ku jirto dowladnimo ku gaari lahayd dimuqraadiyad oo isbedel iyo waxuna si bilaabmi lahayn in ay diyaaran tahay. madashan oo heerar kala duwan mari doonta ayaa wasiirka